جعل الكسر هذا يوتيوب أحمد توي وحن جعلنا لايك سبسكرايب إيشار بنات هذا صاحب بدل لو ذاك جعل اليوتيوب كان حوجة يعني إمك صوص صارني واحد وقتين يعني يوتيوب كلا توي شو يعني مقرنس إن مدة فيديو هالفرق بدن عن كوكرني طبعا هديك هاس عادن كرنا إنه جعلنا إن بقطه خاص باللينك إنه كوكر في الدور جعل هاي شيء يوتيوب كان إمك عادن كده ونسى أحمد توي وحن سكودي دونا إن بدن سجل فيديو أنا صورنا أو على بدأ يوتيوب عن سكر بدنا ما دام أنت نقل سعودان halkaasna dad badan ay nagala socdaan jale barnaamijka maanta aan ku hadlayno waxa weeye Djibouti oo maraakiib iibsatay iyo waliba khilaafka dawladda Djibouti iyo Imaaraadka ayaan jale ku soo qaadanaynaa dabcan Djibouti maraakiib ay iibsatay dana siyaasadeed oo magaranaysa weyn ayaa magaranaysa meeshan ka jira jale oo marka kun ay iibsatay marka magaranaysa waxyaabo fara badan Djibouti marka hore ay ka gambareysay iminka banaanka la soo baxay leeyahay dhaqaalihii horumarinta dhaqaalaha ugu weyn tan iyo marka dawladnimada qabsada Ismaaciil Margeeli aad baa dawladda Djibouti dhaqaalaha loo horumarinahay jale marka hore waxaan dhageysanaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Margeeli oo ka hadlaya wax weyn marka ka iibsaday faa'iidada uu leeyahay maraakiibta waaweyn haddii tole inay galaan marsooyinka oo dhan ma waxay jecel yihiin in ay helaan qolo ka reebta oo iyadu wasacda ama qaybisa badeecada oo sida waxa weeyaan waxa la yiraahdaa cluster iska jira oo ilaa maanta مراكب شيء أي كعمل فلان. ومغلس عند الحين اسمع له قال له حوقها يا مراكب اللي يفسدي يقولوا إن يدون هيان إن دكتور نطلع بالعريو مراكب تو وين مكي أي كائن مجال جيبوتي دكتور وين دور دور جيبوتي كله تبع وقتين المجال ساعة يكون ضاديان دبنا مراكب يو إليه وكمبني جيبوتي دولة جيبوتي إلا هذا كمبني جود وين المكان ساعة دبنا وعلابها وسعه أما مكان ساعة تصال هان علابه اللي قصوا قاضي آسيا فوق أيام لكينها جيبوتي دبنا إلا من التريان كم مكان ساعة مصاري ده لوكا أيام لو ساعة جود يسوي طبعا عرض مهم ويجعل غالبا فاهمين كبعين دعاء مركز لما دحوينها جيبوتي أنو إغنو مهم ده إلا ده كل قد جيبوتي أو كلام مركز أي سوجوك ستهلكا أي ترى هذا أنا أنت حدي شغل كله من مصر كل قد كجسوا قبته ميديترينيان إلى مان إنديان أوشن كأو حاجة إيران والسجادة مراكبتي وزعيسي وضيعاتك كان عسكا ومخلص نجاري مراكبتي وزعيسي بدعة وهي فيري جيبوتي ودكتي ما دام الدكتور وين لسمي وعاد لو بلاري وكفايدي سنيسا واحد دونيسا إن مقرنا سجل يا مراكبته مركا كان عندك دا وين مقالة جيبوتي أنت بديت وحوي مراكبته وين يحمل كنيان دكتور جودي هذا مركا أيه كقاضية دبدأ دوح وجود بينها هيان وضم ذاك لا تصار هذا جيبوتي ما دام باو من دوك تعلو وقتها بدأ هندي على جسوق الهيا بدأ عربات مقرنسة لنا عكلنا كمفوق مركا أد بمهم وطه مركا مراكبته وين هذه جل واحد جعلهم إن على مركا كانان ما إن كوكل وريجان مقرنسة هاي أو أي سجودها وسيجل تصار هان على مركا وضع السودان سيمران ومصر تجان مقرنسة وكو أذكتها ومركا وين ومقرن دقة مركا بعرف بدها إن الجوشان مركا جيبوتي waxay leedahay waxaan rabnaa in alaabaha inta aan dhigtaan dibadna anagu aan mar sii qaadno oo aan weyn Masar Eritrea meelaha marka yaryar ee degadaha makaranta siyaasad la fikray weeye aad baynu makaranta arintan u shaqeynaysaa wax la soo dhaweeyay wax mudan in lagu amaano dawladda Djibouti way jaalay markabkan baa iimka iibsadeen markay kale oo fara badan dawladda Djibouti iibsatay doonaysaa dabcan markabka hadda xamuul fara badan buu qaadaya oo makaranta wax kale xusud min shaqaalaha saaran Djibouti weeye dhinac walba laga faa'iidayaa makaranta arintan jaalay waxa marka taawiilinaysa in Djibouti iminka ay doonayso inay buuxiso kaalinta hadda Singapore hadda marka aan fiirino kale Singapore City waa wadan waa sida magaalo dabcan Malaysia bari hore ka go'day iminka waad ogtiin sida ay tahay dhaqaale ahaan in horumartay waa maxay wadanka sababta ko waa marsado makaranaysa dekada weeye makaranaysa waxba lagu kala wareejiyaa badacada ogtiin marka Djibouti meesh ilaahay dhigay makaranaysa muhiimadda ay leedahay fiiri meel muhiim ah ay Djibouti ku taala marka way ka faa'iideysanaysaa waa kala wareeg magaranaysaa maadaama Djibouti ay tahay meel badda cas badda India badda cas oo wali markii magaranaysaa la gudbo oo magaranaysaa waxa weeye Djibouti laga tagay Eritrea Suudaan Masar jaa waxa lagu jira magaranaysaa galbeedka la joogaaba oo
yurubta kale macnaha sidii caalamku si uu suu dhow yahay oo magaranaysaa ay meesha tan muhiimadda ay leedahay ayaa dareemaysa waa badda hindiya badda cas minitee waxaasoo dhan bay magaranaysaa ay ku dhex jirtaa magaranaysaa marka aad bay muhiim u tahay mowqiceeda ka faa'iidaysanaysaa jaalayaal dowladda Djibouti waxaana xusid badan in arrintan jaalayaal ay tahay arrin weyn oo hadda waxa laga yaabaa inaad fahmi karin laakiin haddaan dul istaagno oo sharaxno markii aad aragtay arrintan dowladda Djibouti ku jirto waxa Djibouti kula loolamahaya oo si weyn isu qabteen waa dalka magaranaysaa Imaaraadka Carabta dabcan hay'ad qolo ay u qaabilsan DP World bay yiraahdo magaranaysaa dekadaha iyo waxa ay ku howlaha oo marka hore hawshooda ee dekadaha dalka Imaaraadka inay horumariyaan wateen horumariyaan oo ogtiin dekadaha ku yaala Dubai aad bay u horumarsan yihiin mashaariic fara badan baa lagu soo xiray maraakiibtii oo ogtiin hadda anaga lafteena marka aan baahanaa alaab in noo Dubai noo soo maraan markaas kadib dalku soo laabto alla socotanta marka arrintaas Dubai marka waxay damacday in magaranaysaa gobolka oo dhan ay fariisiso wad ogeydeen dekada Mukalla iyo Caadaan iyo dowladda Djibouti laftigeeda muddo dheer waati ay dul fadhiyeen oo ilaa dekada ay horumarinayna ujeedka iga laayeen wax kale ma ahan waxay rabeen in dekada Djibouti iyo dekadaha kale ee magaranaysaa aaga ku yaala in la fariisiyo oo magaranaysaa maraakiibta imaanaysa canshuur siyaada la saaro la lugooyo dabadeedna magaranaysaa dekadooda Dubai weligood sidaas ahaato marka madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle aad ugu amaanaya dowladda Djibouti way fahantay dabadeed waxay tiri DP World meesha ka baxdo intii meesha laga saaray wadooga DP World dacwo iminka wada maxkamadda wax bay geysay waxa ka socon maayaan dowladda Djibouti go'aan ay qaadato waxay tiri dan ugu ma jirto magaranaysaa laakiin wali sheeri leeyahay marka Dubai marka aad bay dowladda Djibouti la dagaalaysaa maxaa wacay Djibouti waxa ay ku howlan tahay inay buuxiso kaalintii Dubai maxaa wacay Dubai fiiri golofka ay ku taala oo waad ogtihiin waa laab waa Oman saas bay laab ugu jirtaa Oman gadaasheeda weeye magaranaysaa marka halkan meesha ay ku taala dowladda Djibouti ayaa kun iyo kow jeer ka muhiimsan meesha ay ku taala Imaaraad taasina marka waa mid keenaysa in magaranaysaa Imaaraadku in badan magaranaysaa arrintan uu ka hadlayo uu leeyahay socon mayso dekada anaga maamulayno wali sheeraankan ay dowladda waqti baqaylnahay wali laakiin tilaabadan iminka ay qaaday dowladda Djibouti oo magaranaysaa waxay dekadaha Djibouti dib loogu ballaariyay oo marka hore ay ka faa'iideysteen iminkana ay sii ballaariyeen iyo waliba markii dambe fikirkan iminka siyaasadeed ah maraakiib inta la keeno la yiraahdo maraakiibta waaweyn meelaha wax ku kala gadiya halkan magaranaysaa aad bay arrinta tan muhiim u tahay jaalayaal marka Imaaraadku wuu culaadinayaa aad buu arrinta Imaaraadku culaadinayaa marka Djibouti tan kale waa ammaan jaalayaal oo wax ogtihiin waxa fadhiya dowladihii oo dhan oo dowladda Djibouti inkastoo ammaankeedu sugan yahay oo dowladda dhameystiran tahay xor oo madax bannaan haddana dowlado kale oo fara badan baa joogo oo wax ka warhaysaan in magaranaysaa ay saldhigyo fara badan ku yaalaan marka waa meel ammaankeedu sugan yahay fiican yahay dhan walba magaranaysaa loo hubiyay dowladda Djibouti iminka ay ka faa'iideysanayso muhiimadda ay leedahay meesha ay ku taalo iyo waliba fahamka dhaqaalaha ay fahamtay magaranaysaa marka waxa arkaan Djibouti iminka waa Singapore cusub ee magaranaysaa ku taala jaalayaal geeska Afrika ayaan arkaynaa waana wax lagu amaanay dabcan Djibouti dhowr jeer baan ku laabtay waa la socda dekadooda waa la hormariyay wax badan baa laga qabtay aad baan magaranaysaa arrinta ay tahay mid aan si weyn ugu amaanayno dowladda Djibouti shacbigeeda madaxweynaheeda sharafta leh Ismaaciil Umar Geelle ee sida weyn magaranaysaa bulshada u hormariyay tan iyo markii uu xukunka yimid 1999 markii uu kala wareegay madaxweynihii hore Djibouti Xasan Guuleed Abdidoon oo markaasi wadanka Djibouti soo xukumayay tan iyo markaasi wax weeye xornimadii wadankaasi Djibouti waa arrin si weyn loogu hambalyeeyo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan aad bay u soo dhaweynayaan tilaabada horumar kale ay qaadatay iyo waliba fahamka siyaasadda magaranaysaa fahamka siyaasadda aad muhiim yahay siyaasadda ay fahmeen dabcan weyn ka faa'iideysanaya Ismaaciil Umar Geelle waxaad moodaa in magaranaysaa uu yiri annagu aan magaranaysaa ka faa'iideysano hadda goorna waa dhageystay waraysi uu bixinayay madaxweynuhu isagoo oo leh magaranaysaa muhiimadda ay leedahay meesha ay ku taala dowladda Djibouti ayaanu ka faa'iideysanaa waxa uu yiri meeshii macaadin iyo shidaal bedelkeed ayaan magaranaysaa ilaahay meeshaan dhigay ilaahayna nama ilaawan buu yiri meeshani ayuu nooga dhigay hodan waana dabcan weyn tahay marka Djibouti aad bay muhiim u tahay maraakiibta ibsadeen dabcan waxay isku jiraan maraakiib xumul caadi ah iyo waliba ku talaagada wato magaranaysaa culayska iyo wax walba qaadi karahay aad baan arrinta ay tahay tilaabo
muhiim ah laakiin dhanka kale markaan eegno jaaleel maadaama imaaraadku aad ogtiin Dubai uu joogo oo dhaqaale uu ku qabo oo marsada ka sameeyay magaranaysa arrintan inuu ka hor yimaado way iska caddahay marka hore muuna diidan yahay magaranaysa qalalaasan uu ku wadaa in dekada magaranaysa waxa uu maamulahayay iyo in magaranaysa sheer uu yahay waxba ilaa in sheegana bariye dekada marka hore maalgeliyay dabcan ogtiin marka iminkana arrintan Djibouti ay ku dhaqaaqday maraakiibta ku iibsanayso ku kala wareejinaysana colaadin iyo magaranaysa dhibaato inay kaga timaaday u badan tahay laakiin magaranaysa kulay siyaasiyiinta iyo dadka madaxda meesha jooga Djibouti qaasatan madaxweyne Ismaaciil Margeele arrinta uu ogyahay uu dhiifayo dabcan arrinta magaranaysa ka hortagi doona sida rajaynayo jaalal marka barnaamijkan aan si kooban uga hadlaynay dawladda Djibouti oo noqonaysa Singapore dageeska Afrika iyo waliba maraakiibta ay soo iibsatay ay alaabaha kala daabulayso ayaan barnaamijkan ku soo qaadanayay waxaan jeclaan lahaa jaalayaal YouTube-kaygan Axmed Tooyo in magaranaysa subscribe aad tiraahdo barnaamijyada waa ku soo badanaynaa waxa xusid mudan in YouTube-keena kale ee Tooyo Show uu ku jira barnaamijyo fara badan oo video yaal oo dabcan waxaan xusid mar walba siyaasadda iyo wax ku xeeran siyaasadda dhaqaalaha siyaasadda diinta waxa aan hal jeer kala ogtiin jaaleel marka YouTube-kayga Axmed Tooyo haduu subscribe dheh comment-ka nagu sheeg adiga jaalle maxay kula tahay inta aan dib u kulmi doono Axmed Tooyo waxaan ilaahay sida ay nabadgeliyo jaalayaal